hadla ay ahayd in maqaamkii la rabay sida sharciga in looga hadlo in dhammaan maqaamkii ay magaalada Muqdisho lahayd la baabi'inayo dhulkii ay maqaamka ku yeelan lahayd oo dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeyay oo dhan la iibinayo dadkii masaakiinta ahaa ee duruufaha adag 30 sano u dambeeyay soo gaareen oo hoyga u noqday dhulkii dawladdu lahaan jirtay oo qaybtood xataa ay maanta masaajidda ku yaalaan in cagafyo la marinayo la burburinayo oo dan dawladeed aan lagu qabanayna dad ganacsatada laga gadayo waxaan halka uga baaqayaa ganacsatada reer Muqdisho inay Ilaahay uga baqaan waxa ay ka shaqeynayaan iyaga ruuxadooda inaysan ku kadsoomin dhulka danta qaran ah in xaraash aanan sharci ahayn oo hay'adaha dawladda la mariyo dadka reer Muqdisho waxaan leeyahay haddii maqaamka ay dawladda tani baabi'iso waxa halis ah in maqaamka ka hadalkiisa uu meesha ka baxo waxaan ku boorinayaa siyaasiyiinta